مسؤوليinta jaamacadda bariga Afrika faraceeda magaalada Qardho ayaa waxa ay gudoomeen qalab caafimaad oo ay ugu deeqday ururka Qardho Foundation waxaana qalabkaasi la sheegay in uu sahlayo in ay helaan tababarkii ay u baahnayeen ardayda baranaysa kuleeyadaha caafimaadka ee jaamacadda bariga Afrika ee magaalada Qardho Ali Doola yare ayaa ka warmay munaasabadan oo xalay ka dhacday hoolka jaamacadda bariga Afrika faraca Qardho waxa isla jaamacaddu agab caafimaad oo deeq ah ka gudoontay ururka Qardho Foundation oo ah urur ay ku midaysan yihiin dad ku kala sugan gudaha dalka iyo daafaha caalamka xafladda wareejinta ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada Qardho maamulka jaamacadda bariga Afrika odayaal dhaqameed waxgarad culimo macallimiin qaybaha haweenka ardayda jaamacadda iyo mas'uuliyiin kale maamulaha jaamacadda bariga Afrika faraca magaalada Qardho oo madasha ka hadlay ayaa ugu horeyn ururkan uga mahadceliyay agabka ay soo gaarsiiyeen halka dhanka kale afayeenka ururka Qardho Foundation uu sheegay dadaalada ay ku soo bixiyeen keenista qalabkan caafimaad oo laga keenay dalka Shiinaha munaasabadan caawa munaasabad aanu kaga gudoomayno ururkaasi deeq qalabkaas ay inoo muuqda runtii alaabtan ururkaas iyo jaamacadda ayaa iska kaashaday kharashkeeda China laga dalbay maxay ahayd intaas baa ina soo gaartay insha Allah waa in bilow oo aad iyo aad u wanaagsan ururkan waa urur cusub oo hadda hawlihiisa dhawaan bilaabay laakiin wax wanaagsan buu ilaa hadda ku talaabsaday oo qabtay waxaan u rajaynaynaa inuu insha Allah guuleysto oo wax weyn uu qabto waxa ujeedkeedu yahay in aan si qarannimo ah waddaniyada ku jirto aan ummadda reer Qardhood ugu kacno oo aan volunteer ugu shaqeyno ururo badan baa jira oo wax qabta waxyaabaha aan kaga duwanahay waxa kamid ah before intaanan wax qabadka aan gaarsiin meesha baahida haysamaan research ku sameynaa after research baan gaarsiinaa deeqda more than 3 hours baan ka sheekaysanaynay oo baaraynay xaaladda jaamacadda kadib ayaan approve garaynay inaan barnaamijka ka qayb qaadano waxaan u mahadcelinayaa hodan cilmi shirag gudoomiyaha ururka Qardho Foundation iyo Luul Xaaji Cabdiraxmaan oo mar walba iyagu abaabulaya oo dadka wax ka soo qaadaya oo aqli iyo fikir iyo contribution bana la wadaagaya sidoo kale waxgaradkii odayaashii dhaqanka iyo mas'uuliyiintii kale ee xafladda ka soo qayb galay ayaa siyaabo kala duwan uga sheekeeyay guulaha iyo dadaalada wanaagsan ee ay wadaan bahda jaamacadda bariga Afrika iyo ururka deeqda keenay ee Qardho Foundation waxaan aad iyo aad marlaba ugu mahadcelinayaa Qardho Foundation waxaan leeyahay haka daalina waxa weeye hawsha halka ka sii wada aad iyo aad baan mahadsantahay dhamaantiin wasaaradahan iyo kaaweerahanba anagoo iskaashanayna wax badan baan sugaynay run ahaantiina caawa inoo noqotay inaanu helno waa guul noo soo hoyatay haweenku iyaga oo had iyo jeer ku hawlan waxbarashada ilmahooda muxuu ahayd gacantana ku haya si hoos ahaaneedna ku dhog alxamdulillaah rabbil caalamiin tallaabooyin aan qaadnay ka mid tahay inay iskoolka Sheekh Cusmaan ay ku wareejiyeen kumbuyuutaro waxaan makhraanti uga nahay ama uga marakacaya inta hadda uu Xasan akhrinayay inay ahayd wax waajib ah oo wax macnaheedu xaqiiq ah xaqiiqadii jaamacadda bariga Afrika faraceeda Qardho guul aad u weyn bay gaadhay horumar weyn bay ku jiraa waxay u noqotay ardada Qardho joogta oo ka soo baxaysa dugsiyada sare ee magaalada Qardho waxay iskalisay niyad wanaagsan iyo rajo fiican ilaahay miisaanadka xasanaadka ugu daro qalabkan hadda qalab sahlan maaha waliba Qardho Foundation waxaan kula talin lahaa dhanka caafimaadka iyo inay xoog saaraan gurigaana aynu ku jirno waxa lagu dhisay iskaashi dad waliba aan reer Qardhood ahayn ama Soomaaliba ahayn baa iska kaashaday oo shilimaad ay ururiyeen buu ku dhisan yahay gurigaas weyn aynu joognaa inaguna waxaynu la ciirsanahay qalab yar